kolley waa subax kale oo ka mid ah subaxihii daaburka aynu isugu iman jirnay markaa waxaynu saaka wax kooban wixii ilaahay naga garansiiyey ka odhan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo maadaama inta badan anigu shaqadan iskuulka u haya ay tahay akaademiga ama qaybta waxbarashada ee dugsiga mowduucaan soo doortay waxa weeye ardaygu sidee buu performancekiisa ama aqoonta uu soo bandhigayo ee xilliga qiimaynta lagu samaynayo imtixaanka uu u wanaajin karaa sababtaan mowduuca u doortay waxa weeye arday kasta oo halkan jooga ama iskuulka ka tirsanay wuxuu rabaa inuu imtixaanka dhibco sare keeno marka intaa laga tago waxaa jirta wax la yidhahdo quality of education ama tayada waxbarashada marka tayada waxbarashada la leeyahay maxaynu u naqaanaa talow tayada waxbarashada waa maxay ama goormay waxbarashadu tayo leedahay siyaabo kala duwan baa loo eegaa ama loo sheegaa oo wadamada kala duwan ee dunidu ay u sheegaan tayada waxbarashada laakiin markaynu waddankeena soo qaadano marka la leeyahay waxbarashadaas waa waxbarasho tayo fiican waxaa la eegaa performance-ka ama academic performance-ka ardayga wadamada qaarkood ama tayada marka la eegayo marka la leeyahay waxbarashadaas waa waxbarasho tayo fiican meelaha qaarkood waxaa la eegaa qofkan wax soo bartay suuqa muxuu ka jaraya ama qiimaha value-ga uu ku leeyahay suuqu waa mid caynkeeya oo markaad wax soo baratay jaamacad soo dhamayso jaaniska aad shaqo ku helaysaa intuu leegyahay ayaa la eegaa laakiin Somaliland ama waddankeena policy-geena ama systemka waxbarashada waxa lagu qiimeeyaa tayada waxbarashada waxa weeye dhibcaha ama markiska weeye saa daraadeed ayaa waxaynu u dooranay mowduucan saaka aynu ka hadlayna haddii la yidhaahdo arday kastoo inaga madi markaa wuxuu rabaa inuu dhibco sare keeno imtixaanka laakiin waxaa laga yaabaa in wadiiqadii ama waddadii loo marayay ay ka qaldan tahay marka laba qodob ama waxaan ka badnayn oo kooban aynu ku soo koobi doonaa haddii ilaahay ka dhigo sida markiska fiican ama grade fiican imtixaanka looga gaari karo markaa labada qodob aynu ku soo koobayno waxa weeye marka hore ardaygu intaan xilliga imtixaanka la gaadhin maxaa laga rabaa xilliga imtixaanka lagu jirana maxaa laga rabaa ardayga intaan imtixaanka la gaadhin waxaa laga rabaa inuu qodobadan soo socdo fuliyo si dhibcaha imtixaanka uu ka keeni doono ay u wanaagsanaadaan ama academic performance-kiisu uu fiicnaado xilliga uu imtixaanka ku jiro ama imtixaanka inta uu socdana waxaa laga rabaa isagana qodobo kale si uu isna dhibcihiisu u wanaagsanaadaan waayo haddaba kow ardayga waxaa laga rabaa ugu horreyn xilliga aan imtixaankaba la gaadhin inuu waxbarashada kolley dhowr jeer horena halkan waa laydinka sheegay waxaan uu baranayo ama imtixaankan uu gelayo ama aqoontan uu qaadanayo inuu positive attitude ka lahaado inuu si positive uga fikiro ama markaa fikir positive oo waxan ka haysto waxbarashada faaligeeda iyo dhibcahan uu rabo inuu gaadho inuu aaminsan yahay inuu gaari karo haddaanad marka hore aaminsanaynba inaad wax keeni karto dee hadhow tole waxba ma keeni kartid qodobka koowaad markaa laga rabaa waxa weeye inaad positive attitude ka lahaato waxa aad baranayso way qodobka labaad waxa weeye haddaad rabto inaad dhibco fiican keento imtixaanka ama academic performance-kaagu uu wanaagsanaado waa inaad yeelato goal ama hadaf ama meel aad rabto inaad gaadhid tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad klaaska kaalinta koowaad gasho ama imtixaanka kunka la rabo inaad kun kaba keento haddaanad keenaynin inaad 950 keento waa inay jirto markaa meel kuu cayiman haddaad tiraahdo laakiin imtixaanka waan gelayaa uun dhibco fiicanna waan doonayaa waxa weeye waxa meesha ka baxaysa goal setting inaad hadaf yeelato oo meel aad calaamadsato qofka bini aadamka ahayna marka uu rabo inuu development sameeyo ama horumar sameeyo waa inuu jiraa waxa uu hiigsanaya haddaad rabto imika inaad meel tagto
de meesha waad garanaysaa soo ma haddaad rabto inaad suuqii tagto waad garanaysaa jihada uu suuqii kaa xigo ma kolba dhinac baad soconaysaa waa maya laakiin waad garanaysaa targetkaaga saa daraadeed haddaad rabto inaad markis fiican keento waa inaad target yeelato iyo meel aad rabto inaad gaadhid qodobka saddexaad waxa weeye meesha aad calaamadsatay inaad committed ku tahay inay kaa go'an tahay waa arrin aanad iska odhanin anuu kuma rabaa inaan keeno laakiin inaad calaamadsatay inaad meesha kun keento laakiin ay dhab kaa tahay rasmi inay kaa tahay oo ay waxaan tahay go'aan kama dambaysa عزيمة يجوان أدقي أما إن القف وحني كجوناتا وواحد القف ميل كجارو هذا أنا كجونين ودوا ديل بين غنيسا قف ديل يعني واحد الربو مجاري كلام مركز مركز كوميتي نقطه أي وحي كجوناتو وأنا دتنا أساين جريسو ودري عدو مري لهاي وأيكو كتاي تايم مانجمنت أما بلان إن ديالاتو إن الوقت كاجو قرشيسو أو وقت كاجو عاد ماموشو أو عاد جوانساتو وذيقدي أما بروسيجر كي أما مثل كي أتكو جاري لهاي وحنا ضربتو بقول كي كم كي بضربتها هنا كينتو تايم كاجي وقت كاجينا مجرني ست سادو مانج جريسي لبضع اسمه قبل يسمعها مرة هواي نطلت ما دو قرشة يون نظام عاد هلكن كو جاريسو أو حاجة وقت كا وين الوقت وضو حقيقة إيه وقت هاي نفط النصتو إيه وقت كذا حقيقي سلفتي سو عاد مركز سيكا القرشة سو يحب ما دوي كذا حقيقي سي يحلي كذا حقيقي سو therefore مركز time management سميسو أما بلان وياه شو وقت كاجي يقدر واحد كعاونيسا إن الهدف كاجي كله وقته أما سيف عنا دو جاري كرتي وحلوها كهلا يورمي وإنتهى امتحان كله جاري وي وحسوا كلا لقارها بعض إن النقطة good note taker note taking كا أما وحاو معلق كاجو شيء إن النوت جريسو أو القرطو عشركو أنت يرب أما معلق الصبورة كو قري أما بوجو كو قرن أو كلية معها لكن معلق الشرح بدن بو سمية وح بدن عشركو كتير بو شيء وحاس لجو شيء إن عاد قرطو أو النوت كو سميسا يدنا واحد كعاونيسا هادو تولي إن أقول أنت ولا قول لي كلية كبلانن عاد كنتيد أما هذا هيستيد مركا taasi waxay keenaysaa xog fara badan ama information fara badan oo macalinku bixinay inaad si fudud hadhow toole aad u refer garin kartid marka aad tixraaci kartid waxa kale oo laga rabaa ama ku fududeyn kara inaad halkan gaadho self confidence inaad naftaada ku kalsoonaatid inaad adigu is aqoonsatid inaad adigu aamintid inaad halkan aad rabto aad gaari kartid haddaanad adigu is aqoonsan haddaanad adigu naftaada aaminin cid kale wax ku qaban kartaa ma jirto therefore naftaada iyo dadaalkaagu waa kugu kaliya sida daraadeed waxa laga rabaa inaad aaminto waxaanad rabto inaad gaari kartid haddii aad aaminsan tahay inaanad waxanba gaari karin haddaad aaminsan tahay inaad adigu saaqi tahay oo aanad halkaa gaari karin dee waa xaqiiq ma gaari kartid sababtoo ah عادي هان وحكستو أو وناكسن أو لجارة ومركو وح لجارة مركي قف كيسية كي مادان معناها هدي لجوجو فورس كريه أما لجوجو بش كريه نادوجو دداشو إيه هدي عادي كعقولين دداشو ولا بكلا دول therefore believe in yourself نفت هذا آمن نفت هذا كلسوني كقب إذا نوحي كعاونيسا إن تكون دواتو هدف كاجا إن الميل سريك قاعد academic performance كان قرب ككريحة وحوي xilliga aad class-ka dhiganayso ee uu macallinku wax ku dhigayo participation-kaaga class-ku inuu high ahaado inaad noqoto qof waxa class-ka ka dhex socda ama su'aalaha ahaato ama wax la sharaxaya ahaatee class participation-kaagu inuu noqdo mid fiican oo haddii macallinku su'aalo weydiinayo aad noqoto qofka ugu horeeya ee isagu noqda qofka gacanta taagay yiraahdo anaa ka jawaabaya sidoo kale hadii markaa wax la sharaxayo macallinku raado iyo casharkii isku dayo sharaxaya inaad noqoto qofka ugu horeeya taasi waxay ka caawinaysaa su'aal kasto oo aad kaga dhex jawaabto class-ka dhexdiisa ama sharax kasto oo class-ka dhexdiisa ka gasho inaanad weliga ilaa wahay waad xasuusan kartaa maanta casharka lagu diray aad ka sharaxdo fasalka hortiisa weliga ma ilaawi doontid therefore markastoo class participation-kaagu uu sareeyo waa markastoo performance-kaaguna uu fiicnaanayo dhinaca kalena waxay soo hoos gelaysaa qodobkii confidence-ka ahaa oo haddii aad naftaada ku kalsoon tahay
su-aasha haddaad qaladiyo haddaad saxdo labadaba waad saxanta su-aasha markuu macallinku ku weydiiyo eed gacanta taagto eed isku daydo haddaad saxdo iyo haddaad qalado labadaba waad saxanta sababta labadaba u saxanta waxa weeye arday baa tahay aqoon baad raadinaysaa ardaygu inuu wax qaldo haddaan wax la qaldin waxba lama saxo haddaanad wax qaldin waxba ma saxaysid dhinaca kale marka laga eegana su-aashaad qaladaa waa ta kuugu xasuusta badan hadhowtoole ama su-aashaad imtixaanka qalada ha ahaato ama taad galaaska dhexdiisa qalada ha ahaatee hadhowtoole ta kugu dhegaysa ee maskaxdaada haysanaysaa waa taad qaladay waxaa laga yaabaa taad saxday inaad ilowday therefore class participationkuna waa qodob muhiim isaguna waxaa lagaa rabaa intaa marka laga yimaado inaad samayso akhris weliba waxa la yidhahdaa appropriate reading akhris ku habboon oo kii saxda ahaaya akhriskii saxda ahaa inaad wax akhrido akhriskii saxda ahaa maxaynu uga jeednaa akhriska saxda waxaynu uga jeednaa kow inuu subject aad akhriyayso aad waqti ku filan siiso oo haddaad tiraahdo waxbaan akhriyayaa oo chemistry ama physics la soo baxdo 10 daqiiqo aad kaga bafbafsiiso waxba maad akhriyin waa inaad wax u akhrido si deeply oo qoto dheer oo aad waxan isku dayaysay inaad fahantid appropriate reading ama akhriska saxda waxaynu sidoo kale uga jeednaa main pointska ama qodobada nuxurka ee casharka ku jira objectiveska casharka waa inaad si gaar ah concentration u siiso adigoo wixii wada akhriyaya haddana qodobada muhiimka waa inaad si gaar ah u akhrido oo dee highlighter aad mariso kadibna aad dib u qorto waxaan idiin sheegayaa sanadadii hore ardaydu siduu academic performance-koodu ahaa iyo sanadadan iminka aynu joogno performance-ka ardaydu aad bay u kala fog yihiin waxyaabaha aadka u kala fogeeyey waxaa ka mid ah waxba badan lama qoro iminka bugaag daawacan baa haysataan waxaa laga yaabaa bugaa daawacan inuu macallinku wax kaaga akhriyo waxaad qortaaba inay yar tahay laakiin waxaad qorto waa waxaad xasuusnaanayso maskaxdaada ku dheganaanaya si aad taa uga faa'iidaysa markaa waxaad akhriyayso qodobada muhiimkaa dib u qor waayo qodobka kale ee akhriska saxda waxaa ka mid ah ardaydu waxyaabaha ay sameeyaan ee mistakeska waxaa ka mid ah maadaduu jecel yahay ama u fudud buu ku noqnoqdaa ta adag ee dhibaysana uu iska daayaa markaad iska dayso meel lagu soo waxyoonaya hadhow waa maya maadada complicatedkee kugu adag waqtiga ugu badan sii markaad waqtiga ugu badan siiso maxay helaysaa inaad wixii ku celceliso waa maqasheen qisada ninkii hawsha isku dayay ee soo dul fadhiistay ceelka laga cabo dhagixii wadaanta ceelka lagu ridayay uu ku xidhnaa dhagaxu ku xidhnaa ama xadhigeedu uu ku xidhnaa ayaa waxaa jaray xadhigga iyo dhagaxayama adag dhagaxa adagde soo maaha dhagaxii adkaa ayaa waxaa jaray maxay xadhiggii oo talow siduu u jaray wadaantan la soo daraya mar walba ee xadhiggani uu dul marmaraya dhagaxa ayaa markuu muddo badan dul marmaray muxuu sameeyey meeshii markuu ku noqnoqday uu kala jaray dhagaxii hadduu xadhiggu dhagaxa kala jari karo sabjagga kugu adag waad ka guulaysan kartaa de meelay sidaa ahayn sidaa daraaddeed waxaa lagaa rabaa inaad ku noqnoqoto ood waqtiga ugu badan siisa iyadana qodobka ka xiga waxa weeye akhriskaad wax akhriyayso inaad ku celceliso waxaan xasuustaa berigaanu foonfoolka ahayd nin ka mid a raggii aan isu galaaska ahayn ayaa teeramkii dambe markii imtixaanka soo dhowaa ayuu wuxuu ihi maadada historyga teeramkii horaan akhriyey waxaa teeramkii hore akhriday maxaad ka haynaysaa you have to repeat wixii waa inaad ku celceliso si uu maskaxdaada ugu sawirmo saa daraaddeed waxaad akhriyaysaa waa inaanay noqonin wax mar iyo laba iyo saddex ku kooban waa inaad ku celceliso ku celcelintaasi waxay keenaysaa sidaad magacaaga u taqaano inaad waxaan u taqaano deetana ama aad u barato dee waad ogtihiinoo faatixadaas maalin walba 5 jeer baad akhridaa ama wax ka badan soo maaha deetana miyay kaaga baahantay inaad imika akhridood qaybto may dee kaagama baahna sababtoo ah waad memorize garaysay oo maskaxda qaybta dambe aad gelisay saa daraaddeed waxaad ku celceliso si fudud baad u hayn kartaa ugu dambayn appropriate readingka ama qodobka akhriska saxda ah waxaan kusoo gabagabeynayaa markaad wax akhriyayso xidhiidh ha ka dhigin take break waqti qaado saacad markaad wax akhrido 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo soo yar naso soo jibciso shaah iska doono abuu shaah ma cabaan sharaab iska doono saa daraaddeed markaad waqti yar qaadato
refreshment bay maskaxdii helaysaa deetana markaad dib u bilowdo waxay naftii aaminaysaa wax imika aad bilowday inay noqotay saa daraadeed akhrisku waa inaanu xidhiidh noqonin eed waqti siiso ama gaab aad soo gelisa markaa halkaa waxaynu kaga baxnay markaa qodobkii ahaa appropriate readingka waxyaabaha kale ee markaa kaa caawin kara inuu performancekaagu fiicnaado waxaa ka mid ah have discussions in subjectiska mararka qaarkood qaab gruuba aad u wada akhridaan oo dood ka gashaan ama isu sharaxdaan oo discussion samaysaan markaad discussion samaysaan wixii waa lagugu dul akhriyayaa ama kii wax ku dul akhriyay baad noqonaysaa saa daraadeed wuu kugu sawirmayaa waxa aad dhigto ama markaa aad akhrido adigoo cid u akhriyaya oo aan naftaada u akhriyayn aad buu saameyn ugu leeyahay naftaada ama uu maskaxdaada ugu hadhayaa saa daraadeed discussioniskuna waa qodob muhiima waxa kaloo muhiima haddaad rabto inay dhibcahaagu sarreeyaan xilliga fasalka la fadhiyo ee macallinku wax dhigayo concentrationkaaga iyo maskaxdaada oo dhan waxaad ku soo jeedisaa macallinka wax sharaxaya macallinku waxa uu dhigaya ee uu sharaxayo haddaad si fiican ula socoto oo maskaxdaada aad boqolkiiba boqol ku soo jeediso casharka oo aanad galaaska ka dhex sheekinin ama aanad kan gugujinin waxaa la hubaa ilaahay baa la hubaaye inaad wax badan casharkaa ka xasuunaanayso laakiin inta uu sharaxu socdo hadday wax kale ku dhaafiyaan waxaa laga yaabaa hadhow toole inaanad waxba xasuusan qodobka ugu dambeeya waxa weeye qaybta hore kusoo gabagabaynaya marka aad rabto inaad imtixaanka gasho ee aad imtixaankii berri gelayso habeenkaas si fiican u seexo waa qodob aynaan inta badan samaynin inta hore o dhan baynu soo seexanaa deetana habeenkaasaynu soo jeednaa soo maaha laakiin haddaad rabto inaad dhibco fiican keento waa inaad marka hore soo dadaasho ood waqti badan soo geliso laakiin xilliga imtixaanka aad gelayso aad hurdo fiican aad seexato sababtu waa maxay maskaxdu hadday daasho waxba ma qabato inta badan ardayda waad aragteena marka imtixaanka la gelayo iyagoo meelahan taagtaagan oo buug iyo akhriya aad arkaysaa war xilligaa waxba lama akhriyo waxaad haysay baad ilaawaysaa haddii kale maskaxda lama daaliyo sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay to take rest waa inaad markaa waqtigaas aad nasato oo aad yar seexato si fiican u seexato ma naga daysaan waay halkaa waxaynu ku soo gabagabaynaynaa maxaa lagaa rabaa imtixaanka ka hor waxa qodobka labaada maxaa lagaa rabaa imtixaanka dhexdiisa markaad imtixaankii la gaadho ee xilligii imtixaanka ay timaado ee imtixaankii u fadhiisato maxaa iyagana lagaa rabaa si aad dhibco sare u keento kow waxaa lagaa rabaa ugu horeyn imtixaanka markaad ka shaqaynayso inaad su'aalaha siday u kala markis badan yihiin u kala horreysiiso su'aalaha inaad priorities kala siiso oo waxaa laga yaabaa inuu waqtigu kugu yaraado ama su'aalaha hadhow tole qaar waqtigu ka dhaco therefore kuwa uu waqtigu ka dhacaya ha noqdaan kuwa ugu markiska yar su'aalaha inta badan waxaynu naqaanaa imtixaankeennu wuxuu u samaysan yahay format ah inuu ka kooban yahay 3 qaybood qaybta koowaad oo ah multiple choice qaybta labaad oo structure iyo qaybta saddexaad oo extended ah labada qaybood ee dambe su'aaliba su'aashii ka markiska badan tahay ku horree multiple choice-ku ha kuu dambeeyo multiple choice-ku waa qaybta ugu hawsha badan leh uguna markiska yar leh sidaa daraaddeed xagga dambe mari waa qodobka labaad ee lagaa rabo xilliga imtixaanka aad ku jirto waxa weeye inaad su'aasha si fiican u fahanto ood si fiican u dhugato si fiican u analyze garayso sababtoo ah waxaa hore loo yidhi waxa weeye inaad su'aasha fahantaa waa jawaabta barhkeed inta badan degdeg bayna dilaa oo su'aashii instructionkii inagoo si fiican u akhriyin ayaynu jawaabta kula degdegnaa sidaa daraaddeed jawaabta su'aasha intaanad jawaabteeda bixinin waa inaad su'aasha aad u deristo oo aad aad u eegto kadibna aad ka jawaabto markaas su'aasha qodobka ku xiga waxa weeye xilliga imtixaanka qodob horaan soo celinaya mar hore aynu sheegnay xilliga imtixaanka kalsooni muuji naftaadana deji haddaad su'aasha ugu horreysa garan weyda imtixaanka marka lagu soo dhigo wax alla wixii aad soo akhriday way kaa kala yaacaysaa waad naxaysaa dee soo maaha wixii aad soo akhridayna xaggay saasaarayeen waad soo dhoweyso meelahan dhow baad keentay oo imtixaanku baynu kaga baxnaa inta badan
deetana markaad su-aashii garan weydo koowaad haddaad tii labaad garan weydo wixiiba way kala yaacayaan laakiin ugu horeyn naftaada deji kalsoonina muuji naftaadana aamin inaad waxaan garanayso ka shaqaynaysid si aan wixii kaaga kala yaacin qodobka xiga waxa weeye su'aaluhu inaad ka jawaabtaa si ay kugu fududaadaan ama marka hore wax akhriyayso si ay kugu fududaadaan inaad wixii garan karto oo xasuusan karto waxaan aad akhriyayso waxaad xiriir la ku xiriirisaa waxaad hore u taqaanay waxaad akhriyayso ama aad ka shaqaynayso wax aad hore u taqaanay ku xiriiri si aad u xasuusato waxaad tusaale loo soo qaataa tusaale ahaan blood circulation-ka ama wareegga dhiigga haddaad rabto inaad xasuusnaato waxaa wada taqaanaan tareenka iyo qaabku u socdo soo maaha tareenku wuxuu leeyahay station ama meeluu ka dhaqaaqo deetana muxuu maraa xadiid buu maraa aanu ka bixi karin diiso sidaa maaha tareenku meeshuu doono iskama maro xadiidkaa marka uu maro ee uu soo wareego haddana muxuu sameeyaa halkiisiibuu ku soo noqdaa intaa hore waad u taqaanay haddaad rabto circulationkii inaad xasuusnaato circulationkii iyo tareenkii xidhiidh ka dhexaysiin macnaha waxaan uga jeeda waa tusaale untaasiye si aad wixii u xasuusato waxaad hore u taqaanay oo aanad ilaabi karin iyo waxaanaad iminka rabtay answers again mar labaad dib u jeegara wixii aad soo qortay inta badan qodobkaa ma samayno oo marka saa loo dhammeeyo qofku warqadda markaba degdeg buu dhiibaa deetana uu soo baxaa sidood moodo in meeshii qasab loogu hayay iska qaado waqtigaaga deetana wixii aad ka soo shaqaysay dib u jeegaray mar labaad waxaa laga yaabaa su-aalaha qaarood ilduuftay ama marka hore aad yaro naxday ama si kale aad u fahantay inaad marka dambe dib u saxdo waxaasoo dhammi markayn isku soo duubno labadaa qodob bay ku soo urureen wixii lagaa rabay imtixaanka ka hor iyo waxa lagaa rabo imtixaanka dhexdiisa haddaad qodobadaa samayso waxaan rajaynayaa markiskaagu halka aad rabto inuu ku dhowaanayo haddaanad gaadhin haddii kalena inaad gaadhaysa meesha aad rabtay aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay maamul ku-xigeenka dugsiga sare al-Irshaad aad buu mahadsan yahay maamul ku-xigeenka dugsiga sare al-Irshaad Cabdiraxmaan Guuleed Kaahin ahna madaxa akaademiyadda oo maanta aan ku soo casunnay barnaamijkii la magac baxay dhuga macalinkaaga mowduuca ku hadlayana ay ahayd sideed dhibco sare ku keeni kartaa ama sidee buu ardaygu kor ugu qaadi karaa academic performance-kiisa